ciidamada ammaanka Soomaaliya ayaa ku dhawaad 18 saacadood kadib waxa ay soo afjareen weerar ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen dhismayaal ku yaala wadada Maka Al-Mukarrama kuwaas oo isugu jira hoteelo, goobo ganacsi iyo waliba guri dad rayid ay deganaayeen. Weerarka waxa uu ahaa kii ugu saacadaha dheeraa marka dib loogu eego weerarada tooska ah ee ay Al-Shabaab sanadihii u dambeeyay ka fulinayeen magaalada Muqdisho waxaana uu sababay khasaare fara badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale burbur lixaad la soo gaaray dhismayaashii ka agdhawaa halka qarax uu ka dhacay oo u badnaa goobo ganacsi. ciidamada booliska Soomaaliya ayaa xalay ilaa iyo maanta duhurkii howlgal waxa ay ka wadeen nawaaxiga goobaha la beegsaday iyo sidoo kale qaybo kamid ah dhismayaasha lagu tuhmayay inay ku jireen ragga weerar ka geystay iyagoo la dagaalamaya dablay hubeysan oo gudaha u gashay dhismaha Shideeye oo isugu jira goobo ganacsi iyo waliba goobo ay deganaayeen dad shacaba. Dhismaha Shideeye waxa uu ku dhow yahay hotelka Maka Al-Mukarrama oo ay Al-Shabaab sheegteen in bartilmaameedka weerarka uu ahaa isagoo dhinaca ku haya Hilaac UK waxaana sidoo kale dhanka bidix ka xiga hotelka Wardheere. Dhismahan oo ah mid ciriiri ah ayaa la sheegay inay keentay in howlgalka dheeraado isla mar ahaantaasna la soo afjiri waayo iyadoo dableyda hubeysan ay galeen meelo gabaad oo dhismaha kamid ah. Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele ayaa waxa uu sheegayaa sababta 20 saacadood u dhaweysay weerarka. runtii waxaan rabaa xog muhiim ah dadka Soomaalida meel kasta joogaan in la wadaago waxa suuragal ahayd in muddo intaan aad iyo aad uga kooban lagu soo afjaro arrinkaas laakiin sidii lagu yaqiinaba waxay gaashaan bani aadam ka dhigteen dad Soomaaliyeed oo waxba galabsan waxaan hubaa inaad muuqaalo badan oo aad la wadaagi kartaan ay jiri doonaan dadka daawadayaashiina muuqaaladaas oo muujinayo dhalinyaro Soomaaliyeed oo saraakiil ah oo soo badbaadinayo duqeyti Soomaaliyeed oo nimankaasi dabxirka ay u isticmaaleen ay soo furanayeen civilianka faraha badan ama dadka madaniga ah oo ciidanka ahayn oo meesha ay gaashaanka ka dhigteen soo badbaadintooda ay xaaladda dheeraysay. dhanka kale waxaan rabaa inaan dadka Soomaalida meel kasta joogaan aan xasuusiyo annaga iyo shabaab dawladda Soomaaliya iyo shabaab ma wax loo garnaqi karo. Howlgalka ayaa maanta duhurkii waxa ku soo biiray ciidamada sida gaarka u tababaran ee loo yaqaan gaashaan kuwaas oo markii ay gudaha u galeen dhismaha adeegsaday bambaanooyin iyo waliba hub culus taasoo mar kale xaaladda goobta ka dhigtay mid adag. 9kii galabnimo ee qadar daqiiqada ah ayaa la sheegay in howlgalka uu soo dhamaaday iyadoo lagu qarxiyay dableydii goobta ku jirtay dhismaha Shideeye oo ahayd goobta ay saacadaha badan ka dagaalamayeen. qof kamid ah dadkii ka agdhawaa halka qarax uu ka dhacay iyo sidoo kale ruux lahaa mid kamid ah goobaha ganacsi ee burbur ku saameeyay ayaa waxa ay ka hadlayaan wixii ay goobta ku arkeen. meesha gudaheeda ku jiray ma qiimeyn kara xaaladaas noocay ahayd hal saac ka bacdan ka baxnay anagoo xaaladeedu aysan hagaagsanayn alxamdulillaah rabbil caalamiin haddana waa nabad qabnaa waana caafimaad qabnaa. gaariga noocu waxa qarxay miyad arkay wallaahi gaariga noocu waxa ma sheegi karo mana tilmaami karo because indhahay uma qaban mana arkayn marka wax ka saaro dhimasho dhaawac miyad aragtay tan wad ismay wax dhimasho hadda wax xasuustaa yar Ismaaciil laha oo gaarigan watay hor yaala hadda oo meesha markaas soo galay ka bacdina iga soo baxay ninkaas meesha waa la isheegay wali xaqiijiyay hablihii meesha igala jiray iyagana dhaawac soo gaargaaray laakiin fudud aan aad u weynayn oo marka ila joogo iyagana customer ah wax naga gadanayay alxamdulillaah rabbil caalamiin wax kale hadda aan ogahay ma jirto. dadka dariska oo ganacsiga ugu xoo kale hadda midna hotelkan dadkii joogay dhowr qof oo kamid ah waa dhaawac ninkii mulkiilaha kamid ah waa dhaawac intaas aan sheegi karaa wax kale hadda aan garan karo ma jirto. annaga dukaankan Banaadir Electronic ayaan ku lahayn dukaan weyn baan ku lahayn meeshan xarwo weyn waan ku weynay ma sha Allah wixii dibla waa ku qasaarnay alaab badan ayaa nooga baabaaday badeeco ugu yaraan adii $100,000 ah ayaa nooga jirtay marka iyadoo maqribkii la xiray iyadoo fiican oo waxba ka haleysnayn adiga waxaan u nimid iyadoo burbursan oo meeshii waad u jeediin baadinkana meel xoolo yaaliin midna uma eka maya anaga waxba noogama dhiman laakiin hantidii nooga burburtay iyo iridii ganacsiga ahayd ayaa ku baabaaday laakiin waxba noogama dhiman dad noogama dhiman anaga. waxaa jira dhaawacyo tiro badan oo uu sababay qaraxa iyo sidoo kale dagaalka tooska ah ee goobta ka dhacay waxaana ay ahayd meesha ugu badan ee dadkaas la geeyay cisbitaalka Digfaar.
mas-uuliyiinta caafimaadka ee isbitaalka ayaa waxa ay sheegayaan in dad ka badan 50 ruux isbitaalka la geeyay ayna jiifaan iyadoo geerida ku sheegay 3 ruux. wuxuu dhahay maanta iyo shalay waxaa noo imaaday oo dhahay 55 qofood oo dhaawac ah 3 kamida way dhimatay 15 kamidana operation camaliyada ay mareen way fiican yihiin xaaladooda qalkood waxay ku jiraan meesha xaaladda degdega dadka lagu haayo dhaqaatiirta iyo kulli waxa waaye shaqadeena aad aan kordhinay aniga oo ku cusub wadanka xataa waxa waaye qaybaha operationska qayban ka ahay waxaan Soomaaliya u rajeynaa guul iyo nabad inay noqoto waxaana leeyahay intii dhimatay Allah u naxariisto inta hadda xanuunsanna Ilaahay caafimaad ha siiyo. saraakiisha dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay tilmaameen inay wadaan baaris ku aadan weerarka iyo khasaaraha uu geystay iyadoo ilaa iminka aanay wax war ka soo saarin tirada saxda ah ee dadka ku waxyeeloobay weerarka walow hay'adaha caafimaadka ay sheegayaan in dhimashadu ay ka badan tahay 40 ruux halka dhaawacuna uu yahay tiro intaas ka sii badan. Abshakur Maxamed Maxamuud warbaahinta Mustaqbal Muqdisho.